السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمان أصحابتي إذا قروح بدن ميل والباد جوجتان maanta waxaan idin wadaa kareemka la mariyo keega markaa rabtid inaad keeg dhalasho ka dhigtid, keeg casuumaad ka dhigtid, keeg alaal iyo keega samaysanaysid waad marsan kartaa. marka waa kareemka sidaas u quruxda badan. waxaa laga yaabaa kareem markaa maqashid kareemkii jirka la marsanayo kaliya inaa maskaxdaada ku soo dhacdo, laakiin kareemada ay kareema jiro, kareem la cuno, kareem keega la marsado, kareem buskudka la marsado. soo maanta waxaan idin wadaa kareemka keega la marsado. keega waa kana hore idinkugu soo galiyay aan marin lahayn, laakiin wuu kulul yahay. intuu ka qabo baan sugayaa kabacdi aan marin doonaa insha allahu tacaala. laakiin maanta waxaan rabaa inaan idin tuso kareemka sida aan u sameeyey iyo waxa aan ka sameeyey oo kaliya. muhiimadu waa taasaa. marka waad mahadsantiin dhammaan asxaabteeda quruxda badan. halkana sida aan u sameeyey waxaa u baahan tahay 4 xabo oo ukun ah, 250 gram oo sokor ah, 40 gram oo bur ah, burka normalka keega laga sameeyo, waa 35 gram oo mais ah, waa kana kale baakadiisa idin tusaaya si aad u fahantiin. waa kan xalwada lagu daro mais kasaa kale tabo iyo 500 oo mililitr oo caano ah. digsigaas waxaa kusoo shubanaya 4 xabo qaybta jaalada ukunta, uma baahnayn qaybta cadda ah. kabacdina waxaa la saarayaa digsiga dabka, sokorta iyo ukunta bes, wax kale aniga ku darin. kadibna wax yar waa isdhex gelin doonaa. marka isdhex gashane waxaan ku darsan doonaa wax yar oo caano ah insha allah. daawasho wacan. waatana waxaan kusoo daray maiskii iyo burkii si fiican ugu soo daray, waliba si fiican ugu soo walaaqay. ii suurtagal weyse inaan video ka duubo anigoo ku daray, waayo aan kaliya iska duubayay, kaliya sameynayay. kale caanaha si tartiib ugu dareysaa, dabka waa ka gaabinaysaa, number hala ku sameynaysaa ama koosa u kasaysid. dabka zaaid u gaabsan waan walaaqaysaa, kama deynaysid walaaqitaanka, waayo dabadkaaga wuxuu kaga dhagayaa digsiga dabadiisa ku dhagayaa. waa kana meesha kusoo shubtay, waxaa ku daboolayaa bacdaas. intuu ka qaboobay waxaa gelinayaa talaajada muddo 2 saacadood ah insha allahu tacaala. 2 saac kadibna waxaan sameynaya insha allahu tacaala. daawasho wacan. waakina waxaa u baahan tahay boqol intuu talaajada noogu sii jiro. mumka markuu soo qaboobi rabo waa samaysanayna 125 gram oo subag buuro ah, waa kasaa kale gramka waa ujeedeen, iyo 125 gram oo subagaan ah. kale waa 2 subag, laakiin dhadhanka isku mid ma ahan. kana macaan, kana dartaan tusaya macaan. oo rootiga xitaa waa la marsan karaa. kan kale waa subag buuro waa kasaysiin.
labada subag waa isku dari doonaa meeshaan intay kadibna waan shiidi doonaa intay ka noqdaan cream isdhexgalayaan labada subagba. markay isdhexgalaan kadibna waxaan kusoo dari doonaa creamkii aan sameysanay oo aan karinay. waa kana sidaas noogu soo baxay. koleeto waa kala dhimay qaybtan waxaan ku darayaa wax yar oo pink ah kama badinayo. qaybtii kaleetoodna waxaan u dhiganayaa cadaankeedii. kale waa arkayseen sida quruxda badan oo noogu soo baxay. muddo adi waxaa makiinada ku hayay 15 daqiiqo oo 20 daqiiqo ah. creamkeeni waxaan noogu soo baxay sidaas quruxda badan. waxaan ku daboolanayaa insha Allah taala bacdaastii waxaan gashan doonaa talaajada intay nooga qaboobayso keekeena. kadibna si aan u marsano keeg waa kala jiraysaa kabacdina gudaha ka marinaysaa laakiin intaada marin qoy si uu u macaan badnaado. waa mahadsantihiin asxaabteeda dhammaan sida aad noola joogteen. inta nagu cusubna waad mahadsantihiin. keegna si uu qaboobo maradaas ku daboolayaa. waa idin salaamaya. assalaamu calaykum.